qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay suxufi sare Aweys Isaaq oo u shaqayn jiray xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay jiraan 5 qodob oo caddayn u ah in mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu yahay madaxweynaha xiga ee Soomaaliya. qodobadaasi ayuu suxufigu u dhigay sidan: 1. waa siyaasigii ugu horreeyay ee dadka Soomaaliyeed ku baraarujiyay halista nidaamka la magacbaxay nabad iyo nolol. waxa uu tilmaamay wixii ay faleen markii ay curdun ka ahaayeen kana digay waxa ay fali karaan sanadaha xiga. dhammaan halisii uu ka digay goobjoog ayaannu u wada ahayn inay dhaceen. tusaalaha ugu yarna waa isku daygii ugu dambeeyey ee carqaladaynta doorashada guddoonka baarlamaanka. 2. ma ahan qof u socda argoosi. waxaa la weeraray gurigiisa oo lagu dilay ciidankii ilaalada u ahaa isagana lagu dhaawacay. intaa loogama harine waa la xiray ilaa ay maxkamadu sii dayso. isaga oo ka soo jeeda reer hub iyo ciidan ku haysta Muqdisho heli karay dad u dagaalama oo qalqalgeliya dawladnimada ayaa waxa uu go'aansaday in dood siyaasad iyo cod lagu kala adkaado oo aan marnaba dagaal iyo qori la adeegsan. waana tan dhacday 5 sano kadib. 3 sano kadib ninkii madaxda ka ahaa xukuumaddii isaga weerartay ayaa cafis ka dalbanay. si fudud ayuuna ku cafiyey dembigii isaga shakhsi ahaan laga galay. shaki igama jiro in haddii maanta uu farmaajo cafis weydiisto uu cafin doono. sida muuqata badbaadada dalka iyo dib u heshiisiinta ayaa uga muhiimsan dembiga isaga laga galay. 3. is-ogol iyo wadar ogol ayaa asal u ah siyaasaddiisa oo kala adkaansho xisaabtaba uguma jirto. tusaale yar haddii aan idin siiyo, maalinkii doorashada guddoonka baarlamaanka, xildhibaanada baarlamaanka oo u badan mucaarad iyo guddoonka ku-meelgaarka ahaa waxaa ka go'nayd in 16 kursi ee Ceelwaaq ay maalinkaa codeeyaan si loo muujiyo in farmaajo laga adkaaday. isaguse waa Cabdiraxmaan waxa uu keenay xal ay ku qanceen dhammaan dhinacyada ishayay. waxaa la isku raacsan yahay in la'aantii ay maalintaa buuq iyo dagaal ku dhammaan lahayd doorashada guddoonka baarlamaanka. 4. miisaanka ololihiisa doorashada. tan iyo doorashadii guddoonka baarlamaanka kadib rag culus ayaa ku biiray ololaha doorashada Cabdiraxmaan Cabdishakuur. inkastoo Cabdiraxmaan yahay hadalyaqaan iyo weliba siyaasi aragti fog leh, haddana marka aad gelayso doorasho waxaad u baahan tahay rag miisaan leh oo garbahaada taagan. shakhsiyaad caan ah, siyaasiyiin miisaan culus leh iyo xildhibaanno ka soo jeeda dhammaan gobollada iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa maanta ka shaqaynaya ololihiisa doorashada. waxaa xitaa ololaha ku soo biiray madaxweynayaal maamul goboleed, taa oo ku tusaysa in ay jirto dabayl isbeddel doon ah oo aad u xooggan. 5. xildhibaanada koonfur galbeed iyo Laftagareen. ilo xog ogaal ah ayaa ii sheegay in madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu aad ugu farxay la kulanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Laftagareen waa siyaasi in badan ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya, fahmina kara halka ay dabayshu u socoto oo ma doonayo inuu sii saarnaado doon sii quusaysa. marka farmaajo laga adkaado, Laftagareen wuxuu fahamsan yahay inay ku soo socdaan muujado siyaasadeed. si marka uu taa uga gaashaanto waa inuu maanta sarriftaa oo uu ku gorgortamaa xildhibaanada uu maanta gacanta ku haysto. dabcan arrintaa waa uu ka fakarayaa. kulankii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo isagana waa bilowga sarrifashada awoodda uu maanta haysto. gabagabadii haddii 5 sano kadib isbeddel dhab ah la rabo, dabcan waa Cabdiraxmaan isbeddelka loo baahan yahay.